telefishinka caalamiga Star TV ayaa booqday hoyga ay ku nool yihiin hooyo haysata 4 caruur oo 3 kamid ah ay curyaamin yihiin isla markaasina aan laxaadkoodu dhameystirnayn. 3dan caruurta ay hooyadaasi haysato ayaan gebi ahaanba awoodin dhaqdhaqaaq aan ka badnayn eegmo. waxana hooyadani ay caruurtaasi ku quudisaa deeqda ay soo dhiibaan dadka muxsiniinta iyadoona sanad kasta bishan oo kale deeqda loo ururiyo ay gaarsiiso sanadka dambe. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Xuseen Jaamac Jablibaax iyo Sheekh Jaamac Faarax iyagoona labadooduba dadka muxsiniinta ugu baaqay inay soo caawiyaan hooyadaasi la tabaalaysan 3 caruurta ay curyaaminta. waxaan la joognaa curyaamadii gurigoodii loo dhisi jiray berigii hore in badanna waa lagu soo celcelin jiray waxay ahayn curyaamo halkan Alle subxaanahu wa ta'ala uu uga dhigay rug. waxaa halkan ku haya dadka muslimiinta ah Alle subxaanahu wa ta'ala marka wax loo weydiiyo u dhagag nuglaan jiray. waxaan halkan fadhiya jiifay aragtaan ee aan mid toosay lahayn oo mid hadlay lahayn oo mid dhereer iska duway lahayn oo ka soreyn soo socota lahayn oo cidina meel ugu maqnayn ayaa dadka muslimiinta ah say ugu dhagag nuglaayeen la rabaa si ka badan waayo baahidii baa soo badatay. saa darteed waxaanu dadka muslimiinta u weydiinaynaa inay u soo duceeyaan awalan mar in Alle subxaanahu wa ta'ala ka kiciyo sidii kuwii hore u kacay. thaniyan inay wax soo taraan gacan weyn wax ku soo taraan oo hadii qaar oranaya annagaba kafaala qaadanayno oo biilkoodaba bixinaynana ducada loogu daraya. inta kalena waxaan ka rabnaa waa bishii Ramadaan ilaa bisheeda marka bishan oo kale wax loo weydiiyo dadka muslimiinta ilaa bisheeda kale ayaa loo suqoliyaa waxa oo ay dhibaato ku qabaan dadka haya. waxaan rabnaa gacan weyn in wax lagu soo taro. waxaan ku darayaa insha Allah ta'ala ilaahay waa kii nabiga nabi alayhi salatu wasalaam oo dhulka isaga naxariisan samada idinka naxariisanaya. ilaahay kaalmada adoonka wax uu kaalmeynaya inta walaalkii uu kaalmeynayo baa isagana adoonka ilaahay u kaalmeynaya. waxa weeyaan ilaahay cago iyo uma waayin iyo aqli iyo wax walba uma waayin laakiin inaga leeynagu eegaya ما شاء الله عاد wax loo soo tari jiray haddana waxa leeyahay wax loo soo taro laga sheegay laga waramo qolatan hadii qolada oraysanaa kafaala qaadayna iyo hadii qolo kale kamid ah oraysanaa kafaala qaadayna mid wal mustacid baa loo yahay barakallahu fiikum wa rabba insha Allah ta'ala inaynu soo naxariisano Allah ya baarik. Sheekh Jaamac arinta dhamay waxaynu doonaynaa dadkii aad waa run aad baa dadkii hayeen hooyooda haysa oo kaliya hooyooda runtii waa ku dhib qabtaa insha Allah ta'ala ilaahay ha u kaakiciyo Allah u kaakiciyo waxaanu ilaahay weydiinayna ilaahay inuu ka kiciyo oo awoodooda uu soo celiyo sida uu hadda kaaba ugu soo celiyay marka mid uu ugu soo celiyay. insha Allah ta'ala waxaanu ka barinaa ilaahay irsaaqad waasican Allah siiyo oo ummadooda Allah u sakhiro ha loo soo dadaalo bil Ramadaan baynu ku jirnaa waa aakhir sadaqadu way ka xoog badan tahay tii hore la bixin jiray insha Allah ta'ala marka intaas oo laban laab ilaahay ku laban laabaya inta aad soo bixiso. haddaba dadka muxsiniinta ay daawanaya muuqaalkan waxa laga codsanayaa in wixii taakula ay awoodaan ay ugu soo hagaajiyaan lambarada shaashada ka muuqda. Cabdiraxmaan Axmed Star TV Ceergabo.